waxay iska xureeyeen dadkan kooxa khawaarij ah waxayna diideen inay dalkaani xukunkaasi la qabsadaan ay la maamulaan sida ay kuwa isaga sifeeyeen ayay haddana waxay go'aansadeen maamulka gacanku rimiska ah ee calooshood u shaqaystayaasha ah inay handale gacmaha isaga qabtaan magaaladaas kala matali doono insha Allah ta'ala qoloba meeshii ay ka tirsan tahay ay aadi doontaa dabcan markaan saas leh waxaan u malaynayaa inay jawhar kaneecadu ay ku dhamay doonto waxay la kulmeen inay odayaashii dhaqanka soo tuugaan ay yiraahdaan wadda aan ku baxsannaha noola sameeyo waa codsi awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan rabaa oo shirkeenna jaraa'id ku saabsan yahay maanta dhacdadii foosha xumayd oo ay xalay magaaladan hoyga u ahayd waxaad la socotaan abbaarihii markii afurkii oo maadaama aan bil ramadaan ku jirno la afuray in kooxahii laga soo abaabulay maamul goboleedka nimanka sheegtay ee hirshabeelle la yidhaahda ee loo soo abaabulay rabitaanka shacbiga rabitaanka ummadeed dawladnimada ku timid inay culays ama breshar saaraan waxay soo qaadeen weerar qaawan oo runtii aynan waxba la harin waxaad arkayseen in xalay ilaa iyo saakay waa berigii ay dadkaani dhagahooda maqlayeen qoryaha culculus sida zuugagga iyo kuwa la halmaala dabcan kambaniga ama qoladaas maamul goboleedka sheegtay waxay go'aansadeen inay ka hor yimaadaan rabitaanka shacbiga oo ahay mid runtii ay dadkaani maalinta ay aayahooda ka tashadeen oo ay go'aansadeen inay dawlad ay ayagu leeyihiin dhistaan inay sameeyeen inay duulaan qaawan u soo qaadaan si ay u caburiyaan rabitaanka shacbiga ay u hor istaagaan dawlad goboleedka ka curatay kana jirtay awal ee magaceedu la yiraahdo Hiiraan State oo asalkeedu yahay qadiyad umadeed shacbigii iyo ciidamadii dawlad goboleedka Hiiraan State ee xilliga weerarka ay ku soo qaadeenna waxay iska caabin tii ugu quruxda badnayd waxayna la kulmeen inay gawaaridooda dabada ka gubanaysa ay halkan ka cararaan waxay la kulmeen inay odayaashii dhaqanka soo tuugaan ay yiraahdaan wadda aan ku baxsannaha noola sameeyo waa codsi waxaan u sheegnay in maanta la joogo maalintii ummadda reer Hiiraan State ay sharafkooda iyo gobonnimadoodu muujin lahaayeen iskana qaban lahaayeen kooxaha calooshood u shaqaystayaasha ah ee maamul goboleed kale u shaqeeya ee loo soo isticmaalay dadkooda si shilimaad yar loogu siiyo qadiyadda ummaddan inay hor istaagaan waxaan bogaabinayaa ciidamadii macawisleyda iyo guud ahaan shacbiga dawlad goboleedka Hiiraan State oo runtii gaarsiiyey saakay inay goob yar ku aruuraan ay dalbadaan in albaab ay ka baxaan la siiyo ciidamadii sababay inay goolka dhaliyaan oo aad xalay dhagihiina ku maqlayseen inay madaafiicda waaweyn ku dul hoobanaysay dadka shacabka ah ee reer beledweyne waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin inaad difaacataan sharafkiina waa ku mahadsantihiin inaad difaacataan gobonnimadiina waad ku mahadsantihiin inaad difaacataan dawladnimadiina dadkaani waxay diideen oo ay iska xureeyeen kooxa khawaarij ah waxay iska xureeyeen dadkan kooxa khawaarij ah
waxayna diideen inay dalkaani xukunkaasi la qabsadaan ay la maamulaan sida ay kuwa isaga sifeeyeen ayay haddana waxay go'aansadeen maamulka gacanku rimiska ah ee calooshood u shaqaystayaasha ah inay handale gacmaha isaga qabtaan go'aankii geesinimada lahaa ee shacbiga guud ahaan iyo ciidamada macawislayduba ay qaateen waa ku mahadsantihiin waana idiga mahadcelinayaa waana idigu bogaabinayaa bismillaahi raxmaani raxiim maanta way taariikhdu tahay 14 bishii 3aad 2024 waxaan halkaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed aan ugu cadeyno wixii xalay iyo saaka ka dhacay magaalada Beledweyne runtii kooxaha calooshood u shaqaystayaasha ah ee ka amar qaata kambaniga Cali Guudlaawe ayaa waxay isku dayeen inay soo weeraraan geesiyaasha Hiiraan State waxaan arkaynay runtii carro kab kala gidisa oo meel kala yaalo ay ka carareen waxa nasiib darro ah nin Hirshabeelle u shaqeeyo waa nin isbaaro u taalo kale nin isbaaro u taalo ma ongola inuu laamiga uu ku dhinto asagoo isbaaro u taalo nin dadkan ku abtirsada oo gobolkan ka soo jeedana ma ongola asagoo Hiiraan State ka soo horjeedo oo Hirshabeelle u shaqeynaa inuu nafbaxa ma ongola balse dhalinyarada ay soo qaldeen ay ka dhaadhiciyeen fikirka qaldan ay beenta u sheegeen ay ugu tala galeen inay naftooda haligaan ay baabi'iyaan habeenkiina dhadada halkan difaaca ugu jiray baqadii xalay qaadeen ilaa hadda wado waa wax aad iyo aad runtii aan ugu xunnahay waxaan leenahay magaalada Beledweyne la isku lama juraayo sidaad u baqateen waan idin raacdaysanaynaa hadduu Ilaahay raalli ka dhigo insha Allah muddada yar oo jaaniskaan idin siinayna waxaad ogaataan inaan u samirnay oo u qaadanay oo u tanaasulnay oo yaani maaragtaan u damqanay odayaasha dhaqanka gobolka waxaan ku jirnaa digtoonawdii ugu dambeysay ama abaabulkii ugu dambeeyay ee aan ku soo ciribtiri lahaynay kooxahan magaalada iskala matali doono insha Allah taala qolaba meeshii ay ka tirsan tahay ay aadi doontaa dabcan markaan saas leeyahay waxaan u malaynayaa inay jawhar kaneecadu ay ku dhamay doonto waxa ka xumahay ayagoo reer Hiiraan ah oo geesiyaasha reer Hiiraan ku abtirsada inay qoon kale ay u dhaantayaan oo xafladeen ay lafaha u guraan waa wax aad ugu xumahay wadankooda khayraad yaala wadankooda barwaaqa taala wadankooda ayaa wax walba yaaleen runtii waxaan mar kale leenahay shacabka reer Beledweyne waa mahadsantihiin sida aad noo taageerteen qurba joogtu waa mahadsanyihiin sida noo garab istaageen ciidamada geesiyaasha ah habeen iyo maalin u soo jeeday inay difaacaan qadiyadda ummadda ee reer Hiiraan ama reer Hiiraan State-na boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin waxaan leeyahay gala heegan buuxa ballanteena waxa waaye ninkii fikir Cali Guudlaawe wadaahay inuu jawhar ka soo jeesto fikirka shacabka reer Hiiraan iyo masiirkooda ninkii ka talinaana inuu Beledweyne oo ku dhaantay oo ku xafladay hadduu Ilaahay raalli ka dhigo aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.